بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وهرين وزير هل كان نلا جوجا وهرين وزير دولة وزارة المهدي بدر حلوان هذا المسؤولين تكلا سمياشة بعض international communities كسفارة ذا أرضي ذا سيدو كلا إنجنير ذا يا بعض البلشوين تا STEM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلام runtii inaan maanta ka soo qayb galo aan ku soo biiro sanadii 7aad waxaan isleeyahay bahda STEM society waxay galeen aan isleeyahay markaan hadda fiirinayay wixii ay soo qabteen iyo sanadihii la soo dhaafay sanadkii 7aad ay madax la galeen anigana waxaan ku faraxsanahay maanta bulshada ugu badan ama aan iraahdo guud ahaan bulshada ka faa'iideysata STEM inay tahay bulshada aan saaxiibka u ahay bulshada aan advocate ama hogaamiyaha u ahay waxaan ku faraxsanahay inaan anigana maanta sanadii 7aad aan ku soo biiro insha Allah waan ka tirsanaan doonaa maadaama bulshadeedii iyo dadkeedii ay dhalinyaradii ay hormuudka u yihiin aniguna waxaan ka ahay duulay iraado xubin laga bilaabo maanta bahda STEM waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan ku bogaadiyo shaqada adag ee quruxda badan ay u qabanayso Dictorayso Saadiya dhalinyarada haday ahaan lahayd in ay u soo abuurto ama iqtiraacdo ama soo noolayso iskuuladii STEM yani hadda dunida markaad fiiriso dunida hormartay inta ay ku hormartay waa intaan oo kaliya ayadoo aan laga tagaynin waxbarashada formalka haddana maanta inta ugu lisleeyahay dadka dunida waxbay ku soo kordhiyeen ama way horumariyeen waxa waaye bahda ka faa'iideystay STEM science technology engineer and math yani waa inta ugu muhiimsan ee maanta la isdhihi karo qofka dhalinyarada xirfad ahaan marka uu xoojiyo farsamo ku darsado ama xirfad ku darsado inuu ku sii horumari karo waxaan xoojinaa anigana sida hadda uu yiri wasiirkeena wasiir Cali dhalinyarada xirfadaha leh hibada leh waxaan rabnaa bahda Han Academy inay dhalinyaradaasi soo aruuriso isxilqaanto ayaduna ay mataqaana dhalinyaradaas ay noqdaan kuwa xirfadoodii meeshaas STEM loogu sii kobciyo runtii marka la fiiriyo dhalinyaradeena duruufta iyo waaqica iyo challenge adag ay wax ku barteen iyo markii la fiiriyo fikradaha iyo wax ay curinayaan runtii waxa wax aad u kala fog ama aad u kala dheer waa runtii dhalinyaradu waxay sameeyeen survive badan inay maxaa la dhahaa wadan hadda ka baxay colaado iyo maxaa la post conflict aha inay wax ku bartaan haddana iqtiraacaan waxyaabaha dadka dunida horumaray ay yani ku helaan waqti dheer inay hiba ayagoo ilaahay u siiyay iqtiraacaan yani hadda dhalinyaradii laga sheekeynayo kale wiilkii xilliga adkaa ee dhalinyaradu u istaagay samata bixiya dadkiisa markay u baahnaayeen oxygeniska ama meelaha qaybtood ku yareen oxygen macmila sameeyay ee lagu soo maxaa la dhahaa survive group waxay ahayd isku day fiican iyo bilow fiican sidoo kale kuwii kale ayagana dhamaantooda xirfadaha kale ayagana sameeyay tiknoolajiyada intaas waxay ku tusaysaa marka dhalinyaradeena inay baahi weyn u qabaan gaar ahaan xirfadaha in la xoojiyo runtii hadda dunida waxay ugu soo aruurtay xirfado qofka xirfad leh ama dhalinyarada xirfada badan barta ama xirfadooda xoojiso ayaa hela opportunity ugu badan markan waxaan rabaa dhalinyarada anigoo advocate kooda inaan markale ayagana ku adkeeyo ayadoo education formalka laga tagay haddana xooga hal la saaro xirfadaha maxaa in xirfad aad barato waxay ka caawinaysaa yani waxyaalaha hadda duruufta la yiraahdo dalku shaqo ma leh dalku shaqo la'aan waaye sidaan waaye waxaan aaminsanahay dhalinyaradu hadday group isugu tagaan maskaxdooda shiilaan waxaan aaminsanahay wax badan inay sameyn karaan shirkado badan oo waaweyn kuwa hadda dunida ka jiro la tartama ama ku mataqaana u dhigma waxa ay soo saaraan inay soo saari karaan dhalinyaradu markan waxaan ku bogaadinaa
inay aaminaan dalkoodu waxaan ku bogaadinaa inay aaminaan xirfadooda annaga wasaaradda dhalinyaro ahaan annagoo kaashan doona wasaaradda waxbarashada iyo bahda STEM society ee walaasheen Dr. Saadiya ay hormuudka u tahay ina annaguna aan qaybtayadu xoogayna ku darno contribution-kan ku darno annagu waxaan rabnaa maadaama ay yihiin bulshada ugu badan loo faa'iideynayo bulshada annagu aan maxay tolay ka soo jeednaa ama ka tirsanahay advocate ku ahay waxaan rabaa anigu walaashay waan u sheegay markaan fadhiyay waxaan ku yiri goobaha aan mas'uulka ka ahayo dhulalka ama iska banaanee aan waxba lagu qabin ee wasaaradda ku hoos qaran waxaan ku yiri dhamaantooda meesha aad kira ka bixin lahayd iskuulada ku asaasi lahayd halkaas keen si free ah si ay dhalinyarada ugu helaan farsamo waxaan rabaa marka inaan u xoojiyo Saacidi u sheego marka ballanqaadkaas diyaar u naga yahay dhammaan meelaha stadiumida xarunta waxaan leenahay kala xarun aad u weyn oo Abdicais Youth Center ayaduna hadda lafteedu dhalinyarada lagu baro xirfado kala duwan ee dhalinyaradu maanta ay ku survive garoobaan marka waxaan rabnaa isbeesiyo waaweyn ee leedahay isbeesiyaas inaan kugu soo dhaweeyno si bilaa shuruuda anaga muhiimadeena waxa waaye dhalinyaradan advocate ka u nahay inay helaan meel xirfadahooda lagu kobciyo inay helaan meel aqoontooda lagu kobciyo saas darteed anaga waxaan diyaar u nahay contribution kaas inaan ku darno aan offer gareyno meelahaas inaan ku siino si free ah haduu ilaahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo la joogooda iyo sida ay u dhiirigelinayaan international communities-ka iyo dhammaan martida halkaan joogto dhalinyarada maanta ama saddexda cisho soo socota haduu ilaahay yiraahdo halkaan ka qaadan doona aqoon kororsi aad u weyn ku lahaan doona doodo badan rajeynayna insha Allah inay soo saari doonaan dhalinyaro xirfad fiican leh sanada soo socota insha Allah wixii ay saddexdan cisho falanqeeyaana dhaqan gelintooda insha Allah ka hirgelin doonta haduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa ugu dambeyn baada STEM inaan iraahdo guuleysta insha Allah waxaan rajeynaynaa sanado kale oo badan iyo idinkoo dhalinyaro badan maxaa la dhahaa ku dhiirigeliya kuna maantaqaana kobciya aqoonta xagga xirfadaha la xiriirta STEM society waxaan leeyahay guuleysta halkaas ka sii wada dadaalkiina yaana iloobina waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ayagana taabageliyaasha sanadkan taabageliya STEM shirkadeena private sector-iskeena ugu weyn private sector-iskeena kamida hormuud ay waxaan leenahay waad mahadsantihiin sida aad mar walba u dhiirigelisaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Save the Children waxaan rajeynaynaa insha Allah inay halkaas ka sii ballaariyaan dadaalada ay ku kobcinayaan iyo dhiirigelinta ay dhalinyarada Soomaaliyeed u sameynayaan marka waxaan leeyahay STEM society guuleysta halkaas ka sii wada insha Allah waxaan rajeeyay guul waarta. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.